komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ee ku sugan gobolka Togdheer ayaa hadda ku dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee xubnaha cusub ee golaha deegaanka degmada Burco kuwaas oo ay kala heleen saddexda xisbi qaran xisbiga kulmiye oo ku guuleystay 4 boos oo kamid ah xubnahaasi iyo waliba xisbiga wadan oo ku guuleystay 5 xildhibaan oo kamid ah xubnahaasi iyo waliba xisbiga ucid oo isaguna ku guuleystay 4 xildhibaan haddaba gudoomiyaha komishanka ee degmada Burco Maxamed Axmed Huruuse ayaa ku dhawaaqay natiijadaasi saaka way bishu tahay 4tii bishii 6aad 2021 waxaan halkan ku soo gabagabeynay tirintii codadka doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka kuwaasoo ahaa 390 goobood alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay si nabadgelyo nagu soo dhameeyay sida sharcigu dhigayo xeerka doorashooyinka xeer number 91/2020 qodobkiisa 124aad waxa ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha degmada Burco sida daraadeed halkan waxaan kula wadaagayaa sidii ay u kala helaan xisbiyadu natiijadii hordhac ahayd guud ahaan gobolka degmada waxa ka codeeyay 425 qof xisbiyadu waxay u kala heleen 425 qof xisbiyadu waxay u kala heleen 28,149 waxa helay ucid oo u dhiganta 26% kulmiye wuxuu helay 33,413 oo u dhiganta 31 cod boqolkiiba wadani wuxuu helay 42,860 waxaanay u kala heleen wadani wuxuu helay 5 xildhibaan kulmiyana wuxuu helay 4 xildhibaan sidoo kale ucidna wuxuu helay 4 xildhibaan musharaxiinta guuleystay ee soo baxay waxay kala yihiin musharaxa koowaad ee xisbiga ucid Cabdirasaaq Ibraahim Abdi wuxuu helay 5,097 musharaxa labaad ee xisbiga ucid wuxuu helay waxa weeye Maxamuud Axmed Maxamed waxaana helay 3,244 musharaxa saddexaad ee xisbiga ucid Mukhtaar Cabdi Maxamuud wuxuu helay 3,198 musharaxa afraad ee xisbiga ucid Farxaan Cilmi Caalin isagu wuxuu helay 2,574 waxaanu musharaxaas ku soo baxay fractiontii jajabkii codadkii laga dhiibtay degmada xildhibaanada xisbiga kulmiye ee soo baxay iyagu waxay kala yihiin Axmed Ducaale Shire Jaamac oo helay 3,705 Khalid Xasan Xaaji Diiriye oo helay 3,652 Aadan Xuseen Maxamed Mire oo helay 3,255 Axmed Cabdi Aadan Cali Darbaan oo helay 3,790 xisbiga wadani musharaxa koowaad waa Muuse Umal Abees oo helay 6,258 waana musharaxa uga codka badan leh degmada Burco waxa ku xiga Suldaan Jaamac Nuux Cali oo helay 5,808 waxa ku xiga Maxamed Xirsi Axmed Wacays oo helay 5,190 waxa ku xiga Cabdiqani Cabdilaahi Axmed oo helay 4,277 waxaan musharaxa ugu dambeeya waxa weeye Mustafa Maxamed Muuse Qasaali oo helay 4,290 guud ahaan 13 xildhibaan baa degmada soo baxay iyagana Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inay noqdaan kuwii degmada iyo gobolka ka saari lahaa xaaladdan imika ku jiro insha Allah waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay ka dhigo inay noqdaan qaar hormood u noqda oo waxaan ku leeyahay inoo sheexa baraare iyo barwaaqo aad iyo aad baan idin salaamay idinkana natiijaduna waa natiijo hordhaca natiijada rasmiga ah waxa ku dhawaaqaya maxkamadda gobolka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Xabiib Ciga Xasan Hon Cable TV magaalada Burco